kuma dahayaan kubadda inay ceshtaan Alan Dooshow waa mid aad u adag waxaan arki jiray horyaalka English Premier League oo kubadaha inta badan marba dhinac ay u socdaan haatan sida muuqanaysa horyaalka dalkeenana wuxuu isku bedelay horyaalka Premier League oo marba dhan ayaa kubadda waxaa la dheli doonaa kubad awood ku dhisan sida horyaalka Ligue 1 dalka Faransiiska inta badan kooxuhu ay awood isku sheegtaan kubaddii wali way socotaa laakiin waa laga soo dhigtay kubaddani waxay u muuqataa galabta inay tahay mid aad u adag wali kubaddii waa laga saaray oo marba dhinac ayaa la isku circirsanayaa sheekadu aad bay u adag tahay Alan Dooshow mis dhigi kartaa kooxda kubadda cagta ee Genyo waxay gashay difaac oo waxay difaacanaysaa goolka ay leedahay si ay koobka munaasabadda 3 dhibcood isugu darsato inta badan kubadda waxay dhiilayaan oo tuurasho ama contribute ay u tuureen ciyaaryahanada Abbas iyo Meyman oo weerar kaga ciyaara ka waran adiga aragtidaas maxaa ka qabtaa Alan Dooshow arintaasi waxaa xariif ku ah kooxaha ka dhisan horyaalka Serie A wadanka Talyaaniga inta badan kubadahaasi turmadaha ciyaara sida muuqata haatan Genyo markii goolka ay dhalisay waxay muuqataa mid dantii ay lahayd gaartay isla markaana waab ayay xiratay laakiin dekada ayaa sheekaasi ka diidan markan dhanka kooxda kubadda cagta dekada ayaa kubaddii lagu weeraraya laakiin kubaddii wali waxa wata garsoorihi wuxuu amray in qalad ay galeen ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Genyo dhankii Genyo ayaana kubaddii loo soo tuuray Salahuddin ayaa kubaddii soo tuuray markan Genyo kubaddii way soo laadeen laakiin markan madax ayaa la isaga saaray oo Genyo kubaddii madax ayaa isaga bixiyeen wali dekada ayaa wadata dekadii kubaddii mar kale ayay tuureen oo waa lagu dagaalamaya waa kubad khatar ah laakiin madax ayuu ku bixiyay ciyaaryahanka lambarka 5 ee Genyo wali Malay ayaa kubaddii soo laaday Genyo kubaddii Meyman ayaa wata Meyman kubaddii wuu wataa Meyman kubaddii isaga ayaa haysta saaxiibka ayuu u baasay lambarka 3 waa loo ciribay kubad qurux badan ayaa tahay Meyman wata kubaddii wuu la dhex jiray laakiin wuu tiro beelay oo kubaddii meel cidla ayay kulantay wali laakiin kubaddii waa soo laaday waa kubadda khatara laakiin wali waa khatara waa kubadda khatara wali waa Meyman kubaddii hawada ayuu marsiiyay ciyaaryahanka lambarka 7 ee kooxda kubadda cagta ee LLBB Genyo ninka lagu magacaabo Maxamed Cabdinuur Maxamed Meyman kubaddaasi wuxuu ka helay meel cidla laakiin kama uusan faa'iideysan oo meel cidla ayuu kubaddaasi hawada ayuu kubaddii waa khatar waa tahliil ayaa gacanta ku dhigay goolaha kooxda kubadda laakiin kubaddaas Meyman asaga ayaa soo xariiftamay oo dhaxda ka soo qaaday oo in badan ciyaaryahanada dekadaha la soo dhex maray marka waxa la dhihi karaa Meyman kubaddaas asaga soo shaqaystay wuu soo shaqaystay laakiin waa laga reebtay laakiin nasiib daro dekada kubaddii meel cidla ayaa mariyeen saaxiibka ayaana mar kale qaatay taa oo qasabtay in meel cidla kubadda uu ka helo markan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta dekada foul ayaa galeen ciyaaryahan lagu magacaabo Malay ayaa kubaddaasi qalad galay sida muuqata Malay aad buu u cariisan yahay laakiin garsoorihi ayaa kaarka jaalaha ayaa hore loo siiyay asaga iyo ciyaaryahanka la ka tirsan kooxda dekadaha marka haddii digniinadu ay bataan waxa laga yaabaa in markaasi ay qaataan ama kaarka casaanka oo ciyaarta gabi ahaanba ay seegi doonaan laakiin garsoori iminka wuu u degay weli ciyaarta way socotaa ayaa xabiib ninka lagu magacaabo Malay waa nin waayo araga oo in badan ayuu dekada u soo ciyaarayay ma malaynayo in si fudud uu kaarka cas ku qaadan karo maadaama kubaddan waa mid khatar ah lambarka afraad ayaa ku dagaalamaya Abooki laakiin tahliil ayaa ku soo baxay tahliil ayaa kubaddii qabsaday tahliil wuxuu qayb ka yahay goolayaasha ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya waa nin xariif ah oo kubadaha inta badan si degan u qabta markan wali dekada ayaa kubaddii wadata Abooki kubaddii wuu ku dagaalamaya isagoo jiif xitaa kubaddii ku hardamaya markan ciyaaryahanka lambarka 8 ee kooxda dekada saaxiibka ayuu u baasay dekada kubaddii way laadeen laakiin waa laga jaray mar kale dekada ayaa wadata ciyaaryahanka lambarka 17 isaga ayaa ku dagaalamaya waa nin awood badan laakiin kubaddii waa laga weeciyay dekada kubaddii way soo laadeen laakiin tahliil ayaa kubaddii mar kale gacanta ku dhigay tahliilna saaxiibkii ayuu u salaxay ciyaaryahanka lambarka 3 ee kooxda Genyo ayaa kubaddii haatan la soo cararaya wali isaga ayaa wata lambarka 3 wali isaga ayaa la cararaya Meyman ayuu meel cidla u dhigay laakiin Meyman ayaa wata laakiin Meyman kubaddii ma gaarin oo waa laga xirtay oo goolaha diida ayaa kubaddaas gacanta ku dhigay wali sheekadu way qasan tahay inkastoo ciyaarta gool eber ay ku hogaaminayso kooxda LLBB Genyo Cabdicasiis kubaddii wuu xoogay laakiin garsoorihi ayaa qalad ka dhigay maadaama uu ku dhacay isla markaana si qaldan oo u jiray ciyaartoyda kooxda kubadda cagta dekada mid ka mid ah dekada kubaddii way soo laaday kubaddii laakiin marka lambarka 3 ee kooxda kubadda cagta Genyo way ka fakatay kubaddii gacan ku tuurna kooxda dekada ayaa haatan tuuranaysa waxaa muuqata in ciyaaryahanka lambarka 3 ee kooxda kubadda cagta dekada haatan inuu bedel ku soo galayo ninka lagu magacaabo oo kooxda dekada lambarka 3 u xiran ayaa haatan bedel ku soo galaya isaga oo bedelay lambarka 17 ee kooxda kubadda cagta dekada ciyaaryahankaasi haatan garoonka ayuu ku cararay ciyaaryahan Cabdishakuur Maxamed ayaa bedel ku soo galay ciyaarta isaga oo bedelay lambarka 17 ee kooxda kubadda cagta ee dekada Awees Jeelani Omar ciyaartii wali waa lagu hardamaya waana gool eber halkaad ka daawanaysaana waa TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee SNTV oo inta badan iska hoola inuu haqabtiro bahweynta isboortiga ee dalkeena Soomaaliya
garsoorihii qalad ayuu ka dhigay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Genyo dhanka kooxda kubadda cagta Genyo ayaana kubaddii haatan Malay ciyaaryahanka lambarka 13aad ee dekada uu u laadaya dhammaan ciyaartooydii dhanka shotay isku waa kubadda qatar waa kubad laakiin tahliil rug cadaaga kooxda kubadda cagta Genyo goalkeeper ku ah ama goolhayaha ayaa kubaddaasi si xariiftimo leh isugu duubay markan dhanka kooxda kubadda cagta dekada ayaa kubaddii lagu weeraraya Meeman ayaa kubadda qabsa saaxiibka iyo Baas Cabdicasiis Meeman ayaa haysta Meeman waa qatar kubaddii laakiin wuu ku dhashay markale Meeman kubaddii waa ceersanaya laakiin Meeman markan ninka ayuu bajiray oo dusha ayuu ka maray garsoorina ciyaarta qalad ayuu ka dhigay wali dekada ayaa kubaddii wada dekada way soo laadeen laakiin madax ayaa la isaga soo saaray markan dekada ayaa kubaddii iska soo bixisay Xuseen ayaa wata Xuseen kubaddii saaxiibka ayuu u baasay laakiin dhaxda ayaa laga jaray ciyaaryahanka lambarka 6aad baasi ninka lagu magacaabo ayaa kubaddaas iska soo bixiyay ciyaartu wali way adag tahay dekada ayaa kubaddii gacan ku tuur laadatay kubaddii dekada wali iyada way iska soo bixisay markan way soo madaxeen Genyo dekada ayaa lugta ku dhigtay lambarka 2aad isaga ayaa wata saaxiibka ayuu u baasay waa kubadda qatar ah lambarka 19aad saaxiibka ayuu u baasay abuuki kubaddii wuu kontrolay laakiin gadaal ayuu u soo leeyay mahad ayaa kubaddii loo baasay mahad saaxiibkii ayuu isna u baasay laakiin waa iska bixiyeen Genyo kubaddii weli mid qatar waa socota wala dabal ayuu ku taabtay yaa abuuki waa nin qatar ah oo kubadda loo yaqaan dabalka ama laba lugaatayga iyo kubaddaasi ku tuuray waxay ahayd kubadda qatar kubaddan waxaan xasuustaa in weeryaanka reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic in uu koobkii qaramada Yurub ka dhaliyay xidiga Mario Balotelli laakiin saaxiib waa laga diiday abuuki inaad arintaasi oo kale ku dhalisay ciyaarta wali way socotaa tahliil gool ciyaartooyda kooxda kubadda cagta dekada goolkii way iska soo barbarayeen ciyaaryahan Xasan Nuur ayaa si lama filaan ah goolkaasi u soo barbarayay Nuur Xasan Nuur ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta dekada ayaa goolkaasi soo barbarayay oo ciyaarta ka dhigay gool iyo gool in sheekadu ay socoto tahliil kubaddaasi waxaa la oran karaa qalad ayuu ku lahaa maadaama kubaddii uu soo haweystay haatan goolku waa ciyaartu waa gool iyo gool waxaa muuqata ciyaaryahanka lambarka 9aad ee dekada in ciyaarta haatan bedel lagu keenayo isaga oo haatan taagan ciyaaryahan Cabdirasaaq Maxamuud Axmed wuxuu bedelayaa ciyaaryahanka lambarka kooxda kubadda cagta dekada u qaata haatan waa laga qaatay waa la bedelay ciyaaryahan Nuur Xasan Nuur oo ahaa dhaliyihii goolka kooxda kubadda cagta dekada ninka goolka u barbareeyay ciyaartu wali ay socotaa sheekaduna way isbedeshay oo waa gool iyo gool oo labada kooxood haatan waa barbardhac dekada markan way weerar tagaysaa oo waxa u muuqata inay carcar tahay markan wali xabiib waxaa la yaab leh ciyaaryahanka goolka u dhaliyay waxaa lagu magacaabaa Nuur ciyaaryahanka ka horeeyay kooxda Genyo ee goolka waxaa dhaliyay ciyaaryahan lagu magacaabo Nuur wuxuu wataa lambarka 2aad ciyaaryahanka dekada u dhaliyay wuxuu wataa asal lambarka 2aad waxay gool ka wada dhaliyeen goolka isku hal gool waxaana goolka ku wada dhaliyeen madaxay ku wada dhaliyeen aalan doosho bal ka waran goolka haatan dhashay ma la oran karaa tahliil qalad ayuu ku lahaa haatan sida muuqata korna ayaa la soo laaday waa kubadda qatar waa kubadda qatar laakiin waa kubadda qatar garsoorihii ciyaarta wuxuu yiri way socotaa Genyona wali way socotaa kubaddii ciyaartooyda Genyo waxay ku qaylinayaan in ciyaarta ama kubaddu ay ahayd mid rigoora laakiin garsooruhu wuu diiday oo kubaddu way socotaa ayuu yiri markan dekada ayaa ku weerar tagaysa dekada lambarka 9aad ayaa loo tuuray Cabdirasaaq oo haatan ciyaarta bedel ku soo galay laakiin lambarka 6aad Baasi ayaa kubaddii ka soo weeciyay dekada kubaddii wali iyada ay wadata way isku baaseen dekada ayaa kubaddii wadata saaxiibkii ayuu wali isaga ayaa lambarka 19aad kubaddii wuu soo laaday laakiin lambarka 4aad ee Genyo ayaa kubaddii baasay saaxiibka ayuu u baasay waa wali isaga lambarka 2aad isaga ayaa ku hardamay Noordeeq kubaddii wuu laaday Meeman ayaa la siiyay Meeman lambarka 2aad Meeman kubaddii wuu dhigay lambarka 9aad waa laga bixiyay laakiin lambarka 9aad ayaa haatan wata markan Genyo ayaa kubaddii wadata Genyo kubaddii way baastay lambarka 3aad lambarka 5aad ayay siisay lambarka 5aad kan 4aad ayuu siiyay 4aad wuu xariiftamay saaxiibka ayuu tuuray Daawud ayaa wata Daawud saaxiibka ayuu tuuray Meeman ayaa la tuuray Meeman iyo Maxamdi laakiin waa la jilaafay oo hawada ayaa dhulka ayaa laga qaaday kubaddiina waa laga bixiyay Maxamed Siidi ciyaaryahanka lambarka 19aad ee kooxda dekada ayaa kubaddaasi ka badbaadiyay Meeman waa nin orod badan ciyaartuna waa gool iyo gool walina sheekadu fari kama qodna kubaddii dekada ayaa haatan lagtu ku haysa dekada kubaddii mahad ayaa kubaddii loo baasay mahad ayaa kubaddii wata mahad saaxiibka ayuu u baasay mar kale dekada mahad ayaa loo celiyay mahad kubaddii uu ku xariiftamaya mahad saaxiibkii ayuu kubadda wali mahad waa laga xoogay laakiin mahad waa la jiray lambarka 5aad Salaaxudiin ayaa kubaddii soo weeciyay dekada ayaa markan u muuqata mid weerar culus qaadaysa markan lambarka 4aad ee loo tuuray abuuki Xamse ayaa ku dagaalamaya Xamse waa la soo dardaray qalad ayuuna Xamse galay sida muuqata waxaana garsooraha ama calawadaha uu sheegay in qalad uu galay ciyaaryahan
xamsa oo ka tirsan naadiga kooxda kubadda cagta ee jenyo oo lambarka 20aad kooxdaas u xirta garsooraha xamsa markii uu murmay waxaa loo taagay kaarka jaalaha ah xamse maxamed mukhtaar kaarka jaalaha ayaa haatan loo taagay sheekadu waxay u muuqataa in dhanka kooxda jenyo haatan ciyaartu ay ku socotay inta badan ciyaartuna waa gool iyo gool waxaadna daawadayaasha sharafta lahu ciyaartan ka daawanaysaan oo si toos ah aad ugala socotaan tiifiga qaranka soomaaliyeed ee Somali National TV markan dekada kubaddii way soo laaday laakiin jenyo kubaddii way iska soo bixiyeen markan waa lagu hardamayaa jenyo kubaddii dekada kubaddii way soo bixiyeen lambarka 9aad kubaddii waa laga soo madaxiyey mar kale jenyo ayaa kubaddii madaxeysay markan waa isku noqonaysa kubadda mahad ayaa kubaddii wata lambarka 8aad mahad kubaddii wuu laaday laakiin baasi ayay ku dhacday baasi ayay madaxa ku dhacday baasi ayaa kubadda wata baasi isaga ayaa ku dagaalamaya saaxiibka ayuu u baasay markan jenyo ayaa kubadda weerar tagaysa jenyo kubadda weerar tagaysa oo waxay haatan u muuqataa mid dhanka difaaca ka soo baxday Alan Duusha maadaama goolkii laga soo barbareeyay kubaddii way ka fakatay ciyaaryahanka lambarka 9aad ee jenyo haddii ay islahaayeen goolka difaacda oo markaas koobkii 3 dhibcood isku darsada hadda difaacii lama geli karo ciyaarta waa barbaro dhibcii waa la kala qaadan doonaa waxay noqon doontaa haddii saan ku dhamaato mid markaas rigoryaal lagu kala baxo haa sheekadu way qasan tahay oo haatan waa mid lagu jiri karo oo waa in la raadiyaa gool kale lamarka 9aad dekada qalad ayaa laga dhigay markii ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee jenyo lambarka 3aad uu isaga uu gacanta ku dhigo ama uu riixay kubaddii haatan gacan ku tuur kooxda jenyo ayaa tuuratay weli waa ay socotaa kubaddii mar kale waxaa garsoorihii uu sheegay in gacan ku tuur kale ay tahay oo meel qaldan ay mariyeen kubaddii way socotaa jenyo lamarka 4aad ayaa kubaddii laaday saaxiibka ayuu siiyey laakiin waa laga qaatay dekada ayaa wadataa malaay kubaddii wuu soo laaday saaxiibka ayaa u baasay abuuki nimanka wuu qalqaliyey laakiin waa xamsa kubaddii wuu ku dagaalamaya marka 20aad xamsa hawada ayuu ku dalacay oo haatan dhaxbartama ayaa kubaddii lagu dagaalamaya jenyo kubaddii way dejisay lambarka 4aad ayaa wata daa'uud saaxiibka ayaa u baasay laakiin dhexda ayaa laga jaray waxaa muuqata in lambarka 9aad ee bedelka lagu keeno inuu yahay nin dadaal badan oo inta badan raacaya kubadda jenyo kubaddii way xariiftamaysaa jenyo ayaa kubaddii wadata lambarka 4aad daa'uud kubaddii isaga ayaa wada daa'uud waa nin qatar ah saaxiibka ayuu u baasay Cabdiis laakiin dhexda ayaa laga jaray daa'uud mar kale saaxiibka ayuu siiyey lambarka 3aad ayaa wata xasan kubaddii wuu baasay meeman ayuu wata laakiin dhexda ayaa laga jaray dekada lambarka 6aad saaxiibka ayuu u baasay cabdulqaadir wuu soo celiyey cabdulqaadir kubaddii hawada ayuu ku dalacay oo dhaxbartamaha ayaa haatan kubaddii lagu dagaalamaya mahad ayaa kubaddii lugta ku dhigay mahad kubaddii isaga ayaa wata saaxiibka ayuu u baasay abuuki wuu laaday abuuki kubaddaas waxayd mid khatar ah waataa daawadayaal weli waxaad daawanaysaan ciyaarta adaga u dhexaysa kooxaha kubadda cagta jenyo iyo dekadaha ciyaarta waxaa lagu jiraa qaybtii labaad waxayna ciyaarta ay maraysaa gool iyo gool kooxda dekadaha waxay iska soo barbaraysay goolka waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahankooda nuur oo markaa la bedelay lamarka labaadna qaata kubad madax ah kadib markii goolhaye tahliil uu kubaddii xoogaa yar hakaday dabadeetna madaxa lagu dabamarsiiyey ciyaarta waa 1-1 weli waxaad daawanaysaa telefishinka qaranka qaybtii labaad jenyo mayman lambarka 7aad halis dishatada afkeeda waa nin xariifa 3 ayuu ka dhex baxay kubaddii mayman ayaa weli wata saaxiibka sida uu siiyey cabdicasiis shoot laakiin goolhayaha ayaa qabsaday kubaddii goolhayaha kooxda kubadda cagta dekadaha muxsin shariif dida ayaa kubaddii ku raaxaystay jenyo ayaa kubaddii iska soo bixisay malaay ayay ka farbaxsatay maxamed cabdulaahi sidi lambarka 19aad kubaddii waxaa qabsaday lambarka 3aad ee kooxda kubadda cagta jenyo kubaddii banaanka ayay ka martay lambarka 6aad ee jenyo ciyaaryahanka lagu magacaabo xasan maxamed xasan ayaa kubaddii banaanka isaga saaray imankana waxaa kubaddii soo gabanaya gacantuur kooxda dekadaha cabdirasaaq ayaa kubaddii markaan faawol ama fooradii ayaa iska qaldeen kooxda kubadda cagta ee dekadaha lambarka 6aad xasan ayaa kubaddii tuuray wuxuu u baasay meeman wuxuu siiyey ciyaaryahanka lambarka daawud way ka dheeraatay ciyaaryahanka lambarka 4aad abuuki wuxuu tuuray maad waa kubad halisa lambarka 8aad ee kooxda kubadda cagta dekadaha dishootada ayaa loo galay 3-2 gool laakiin banaanka ayuu marsiiyey kubaddii banaanka ayay ka martay ciyaaryahanka lambarka 8aad ee kooxda kubadda cagta ee dekadaha ciyaaryahan maxamed mahad oo lambarka 8aad u qaata kubad markaasi kontribiyada ayuu cabdicasiis mayman faawul ayaa lagu dhagaloogay ciyaaryahan cabdiqaadir salaad cawaale oo lambarka 6aad ayaa faawul golay xasan lambarka 6aad ee kooxda kubadda cagta ee jenyo kubad halisa cabaas kubaddii jenyo wadato dekadaha ayaa iska soo bixiyeen ciyaaryahan salaxudiin lambarka 6aad malaay iyo saaxiibkiisa ayaa kubaddii isku garaacay mahad ayaa kubaddii wata lambarka 8aad ee mahad lambarka 8 dekadaha daa'uud lambarka 4aad ee jenyo ayaa weli wadata jenyo ayaa kubaddii wadata dhexda iyo taala laakiin waxaa ka soo qabtay cabdiqaadir salaad kubad kontribiyada lambarka 40aad ee kooxda kubadda cagta jenyo
madax ayuu ku dhuftay Cabbaas laakiin goolaye Muxsin Shariif ayaa kubaddii qabsaday dhaxda ayuu soo dhigay kubaddii dhaxda ayaa taala madax ayaa lagu raadinaya waxaa weli ciyaaryahan Xamza lambarka 20aad ee difaaca kooxda Jenyo iska soo saaray xasan lambarka 6aad ee Jenyo wuxuu baasay Meeman waa nin halisa waxaa raacay Maxamed Abdullahi Sidi Aboki kubaddii waa lagu dagaalamaya goolaye ayaa soo dhawaaday goolaye ayaa qabsa lagu garaacay laakiin kubaddii banaanka goolayaha iyo difaaca ayaa Daa'uud ayaa isku halayay kubaddii kadibna waxaa ka faa'iidaystay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee dekedaha waxaana si fudud loogu garaacay goolayaha iyadoo gal rabtana uu kooxda Jenyo iska soo saareen weli daawadayaal ciyaarta waa gool iyo gool waxaa markaan weerar halisa lagu qaadayaa goolka kooxda kubadda cagta ee Jenyo ciyaarta way isbedeshay weli ciyaarta qaybta labaad ayaa lagu jiraa fariiq ma qadna Maxamed Abdullahi Sidi ayaa kubaddii cirka ku dalacay Cabbaas lambarka 9aad waa nin aad u xoogan Meeman ayaa u dhigay lambarka 7aad ee Meeman lambarka 7aad ee Jenyo wuu xariiftay laakiin kubad shaafto ayaa lagu bixiyay oo shaafto siyaad ciyaaryahanka lagu magacaabo lambarka 12aad ee kooxda kubadda cagta ee dekedaha Xuseen Cumar Maxamed ayaa kubaddii banaanka u saaray laakiin ciyaaryahan Meeman ayaa dhaawacmay ayadoo ciyaaryahanka lambarka 12aad ee dekedahana uu markaas isagana jilba jabsaday si uu u muujiyay in uu isagana uu xanuunsan yahay talo labadoodaba way wada xanuunsan yihiin weli daawadayaal ciyaarta daawanaysaan waa ciyaarta adag ee u dhaxaysa kooxaha kubadda cagta ee dekedaha iyo Jenyo labada kooxoodna waxaa dhex yaal koob markaasi lagu maamuusayo oo lagu xusayo gudoomiye ku-xigeenkii olombikada Soomaaliyeed Cabdiqaadir Yaxye oo 7 sano ka hor geeriyooday labada kooxood kooxdii badisaana waxay la caraabi doontaa koobka waxayna markaasi haddii ciyaarta sidaan ay ku dhammaatay ku kala bixi doonaan rigoorayaal ciyaaryahan Meeman dhaawacii uu ka kacay lambarka 6aad Xasan ayaa kubaddii soo karoosay laakiin banaanka goolhayaha ayaa iska qabsaday kubaddii si fudud ayuu goolhayaha Muxsin ku qabsaday lambarka 8 ee kooxda kubadda dekedaha Maat laakiin Daa'uud lambarka 4aad ee Jenyo ayaa kubaddii ka qabsaday laakiin Maat foul ayuu ku galay oo gadaal ayuu ka qabsaday Maat waxa uu muuqdaa nin carcara qaybtii dambe ciyaartan aad u soo kacsaday kubad wanaagsanna oo weerara halisana ku qaaday goolka kooxda kubadda cagta ee Jenyo weli daawadayaal waxaad naga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV waxaana ciyaarta aan kaga soo tabinaynaa garoonka kubadda cagta ee jaamacadaha ee magaalada Muqdisho waxaana daawanaysaan kulan adag oo ka tirsan horyaalka 37aad ee dalkeena una dhaxeeya kooxaha kubadda cagta dekedaha iyo weliba Jenyo dishootada dhexdeeda gool halisa goolka waa halis laakiin waxaa dhawal ku soo bixiyay ciyaaryahanka lambarka 16aad ee kooxda kubadda cagta dekedaha Malay ee kubadda ka farbaxsada Cabdicaziz Gurey ciyaaryahan Cabdicaziz gurta ayuu ku raadinaya waa nin halisa Cabdicaziz ayaa wata waa nin xariifa goosinta ku wanaagsan kubaddii lambarka 14aad ee kooxda Jenyo ayaa cirka ku dalacay Axmed Cabdiqaadir Daa'uud kubad halisa oo markaasi oo aad u soo xirfadeeyay ciyaaryahanka lambarka 10aad ee kooxda kubadda cagta ee Jenyo Cabdicaziz Maxamed Atoosh oo kuma dheer Cabdicaziz Gurey kubaddaasna shoot ayuu ku raadiyay Cabdicaziz inkastoo uu bidix yahay laakiin inta badan daafacyada kooxda kubadda cagta dekedaha waxay ka raacayeen dhanka bidix ayagoo maanka ku hayo haddii uu ku helo bidixdaasi ay tahay kubad halisa goolaye Muxsinna markaasi halis gelin karta weli daawadayaal ciyaarta ayaa socota waa gool iyo gool Maat dekedaha laakiin kubaddii banaanka ayay u baxday oo dekedaha ayaa gacan ku tuur markaas soo tuuranayso Aboki ayaa kubaddii loo baasay waa nin halisa oo xoogan oo weerar u ciyaara kooxda kubadda cagta dekedaha shoot talow tiyaday ayuu u bartaa umaleena oo goolaye Cabdiqaadir uu ku gaadi jiray laakiin markaan waxay ku dhacday daafaca kooxda kubadda cagta ee Jenyo Cabdirasaaq ayaa xabad saartay lambarka 9aad ee kooxda dekedaha dishootada dhexdeeda laakiin waxaa raacaya ciyaaryahanka lambarka 5aad ee kooxda kubadda cagta ee Jenyo Axmed Tahliil Cali ayaa kubaddaasi ka daafacay laakiin foul ayuu ku galay marka dambe ciyaaryahanka lambarka 9aad ee badal ku soo galay Cabdirasaaq ninka lagu magacaabo Cabbaas waa nin khatar lambarka 9aad inta badan shoot ayuu raadiyaa waxaa wata Jenyo jootada afkeeda halis waayay kubaddan Cabbaas laakiin kubaddii lugta ayuu la waayay lambarka 6aad Xasan waxaa wata weli kooxda Jenyo Maxamed Cabdinuur Meeman kubaddii wuu karoosay cirka ayuu ku baqday goolka halisay laakiin goolayaha kooxda dekedaha ayaa iska soo saaray ciyaaryahanka lagu magacaabo Muxsin Shariif Cali kubaddaas Meeman waa kubad halis ayay ahayd waa kubadaha goolayaasha inta badan halis gelisa xitaa laga yaabo in dhaawac ay ku keento goolayaasha kooxaha kubadda cagta ciyaara goolayi iminka dhulka ayuu jiifa waxaana markaan u tagay garsooraha si uu u ogaado xaaladiisa